kusoo dhawaada xog ku saabsan horyaalka Soomaaliya Somali Premier League 2021-2022 waxaa la soo gabagabeeyay lugta koowaad ee horyaalka kulamadiisa waxaa lagu ciyaarayay garoonka Muqdisho iyo garoonka Engineer Rizzo waxaa la ciyaaray 39 ciyaarood waxaa la iska dhaliyay goolal gaaraya 116 gool garsoorayaashu waxay bixiyeen kaarar jaale ah oo gaaraya 186 jaale sidoo kale waxaa la bixiyay 4 roose goolalinta horyaalka waxaa horkacayo Anwar Said Ali Shakunda oo u ciyaara kooxda Dekedaha waxa uu leeyahay 10 gool waxaa ku soo xigo xidiga kooxda Hegan Cabdulqaadir Aadan Eeno Benteke kaasoo dhaliyay 7 gool horyaalka waxaa horkacayo kooxda kubadda cagta ee Gaadiidka oo leh 17 dhibcood waxaa ku soo xigto kooxda kubadda cagta ee Horseed oo iyana leh 15 dhibcood naadiga Jazeero ayaa ugu hooseysa horyaalka waxayna leedahay 1 dhibic dhawaan ayaa dib loo bilaabi doonaa lugta labaad ee horyaalka marka ay taariikhdu ku beegan tahay 16 bisha tani waxaana gabi ahaan kulamada horyaalka Soomaaliya ee lugta labaad lagu ciyaari doonaa degada Muqdisho Stadium haddii aad nala socotay bilowga ilaa iyo dhamaadka waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalkan share gareysaa oo la wadaagtaa saaxiibada